السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. goob kasta iyo goob kasta iyo meel kasta aad laga daawanaysid maqal iyo muuqaalba wacan oo wanaagsan xilli kasta oo idin tahayba halkani waa Damashaad Media iyo mar labaad studio-ga Damashaad Media waxa maanta studio-ga nagu soo booqatay magaceeda saddexaad idin sheegi doonta ku soo dhawaasha waan ku dhawahay wa alaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Amish Cabdiraxmaan Axmed Amish Cabdiraxmaan Axmed ku soo dhawaatay Moolaha channel aan ku dhawahay iyo ka Damashaadba sax aan ku dhawahay inaguna soo kale welcome aad baad u maasan tahay kulli waxa aa dhex joogta madasha looga armiyo Moolaha iyo ka Soomaal Cultural Academy sax area labo intaan aan barnaamij u wada gelin Moolaha waxaad leedahay fariin qariib wala xalla keebka hore socda dhamaantiin saan isugu dubnaada ما شاء الله اوكي اميش واتما حكي كو صبر بارتي فالتاريخ ان يربط التاريخ هذا ان يركبن كسي مدق داونس والله اميش قبيله بو صبر بارتي اي كورالاتي انت كسلاكاتي ما شاء الله انكاس مو جرا قف سامين كوله نلشاده او حقا اد مهد علين اد uga tagi lahayd ها صح oo wadi macaan ilaa cimriga caafimaadka baa u dheereeyo ما شاء الله هويو magaceed ayaan Ciise aadan kaahin halkaas ka salaaminaa hay ما شاء الله qof kasta qof fasaamin ku leh ha amish ha waxa qof shaqaysta mish ardayad may ardayad baan ahay dugsi sare yes qalax mise may qalax baan dhigtaa qalax ardayda qalax ku daawanaysa ka dhigay waxa orlay madama jala ku yeeshay reegi wax barta burwaqan gaarnay mandila ha wax barta burwaqan gaarnay ma sha Allah horta aad baad u maasan tahay sad maanta noo soo booqatay aniga ku hadlay ka magacayga iyo kan tiimkaygaba waxa jira dhalinyaro jacaylka ku ciyaara horta adigu amishahan jacaylka sayska tiim wala isku wanaagsan ma sha Allah muu jira hal boqor oo bartan ka sareebi lahayd ها وجرا لكن ما قيس مشي كره هو عاد وحده تعمل كل وسقرنيا ها وسقرنا يسوي ما شاء الله waxaan ku leenahay Sidi reeda ma sha Allah ku hadayo magacooda marka la jacaylka waxa toos ku fiican yahay bal maxaa tala sii lahayd dhalinyarta qof jacayl ku dheelaya mise qof jacayl ku ciyaaraya mise maanta qof walba qofkii ugu dhawaa uu garneen wallahi horta waqtigan ku jirna ma arka dhalinyarta waxa aaminsan yihiin jacayl ma jiro صح laakiin hadii run laga jacaylku waa jira oo kan dal ku dhalay marka jacaylku waa jira waxaan adaliyaa anuuniyo jacaylka ku ciyaarina oo qof walba inta aad haysto qofku jecel qofku jecel inta haysto ilaali wallahi hooyo labaad baa istaa aabba labaad baa istaa haysatid gabadh jecel hooyo labaad baa istaa dad haysatid wiilku jecelna aabba labaad baa istaa marka jacaylka ku dheelina waan dheelaanu shakhsiyantada waa jacaylku aan aaminsanahay jacaylku waa wax dhamaantiin ba ku soo wada dhalay لكن دنيتو حمسين وجعل جيرنا لكن ما جرى جعل قال إلهي أنا قولست جعلكم هقولستو كيف جعل بلناهي waxaa jira dhalinyaro badan oo aaminsan jacaylka hadana jacaylkii danka qaldanka deeya oo imaka inantii haday wax jeclaato inantii wax kala fadhiya inantii haday inankii ay aragto inuu jecel yahay kadaba alaalayo waayo tusaale ku siinaya marka qof wax jecel dhibanahu adiga wax jecel adiga sama dhibanaha adiga waa jacaylka khasab kasta iyo bahdil kasta iyo xanuun kasta adiga kuma marayo way qofka jecesha ku muuqata qofkii aad jecleed isagoo og inaad jeceshahay ayuu isna ku ciyaaraya taan waxa la dhalinyarta iska daayo iyo qof walba qofka way ka aad maanta bari ku ciyaaraysa waxaad ogaatana ugu dambeeya waxa jirta ma taqaanaa gaadh kale jacaylka lagu sheegayo adduunka ma jiro laba qof oo si dhab isku jecel maogtaa qofkan qof uu jecel qofkan qof uu si jecel yahay laakiin waxaan ku dhalaa dardaaran wax bixila dhalinta qofka ku jecel labada raac ka jeceshahay ma helisid moogtaa ka jecesha qof uu si jecel laakiin ka ku jecel raac ba ku dhalaana waayda ka ku jecel ka ku jecel ba ku daraynay moogtaa laakiin ka jeceshaadu waa moodan inuu ku jecel yahay qof uu si jecel yahay laakiin adiga ku jecel raac inta jecel ma sha Allah reeda mashaad iyo team walaalaha waxa ilaalinay horta team walaalaha waxa lagu yaqaan waa astaanta jacaylka ma garatay aniga tiimkaygu mar walba waxa loo yaqaan in ay jacaylka dacad yihiin oo tiim walaalaha dadka qaar baa mooda tiim yaro aan afku kaleeyay laakiin ma waa tiim jira oo baaxad weyn oo shanta Soomaaliyeedna ka hawlgala ma sha Allah guuleysta aad baad u maasan tahay adigu amishahana
ardayd baa tahay wax barata jacaylna gacanta ku haysa mustaqbalka maxaa rajaynaysaa walaayta nolol wanaagsan insha Allah weligaa wax ma khiyaantay alla may nolosha ma khiyaamtay horta nolosha sheego wallahi lawada ku saxaatay koonay bilaabantay saxda labada kun isdalaatay ay saxda nolosha bilaabantay intaan haasaabo bilaabin weligii qof ma khiyaamin anayna khiyaama ilaa alla og laakiin wax ma khiyaamin وايد هذا ما تسرع قف كان ما دركتي قف كل خضر وطيق لبا قلبي ما لها قلبي ما لها ما ادي marka may taalaga ma yaab aniga dhacdo hadda hada qof islaan weyn maranka tagin qof kale la gari laakiin isaga la sheekaysan qof kale no ما شاء الله marka waxaan isdii kara hadda xidiga gacanta ku haysa waa ugu baafilaya waa kiigu horeeyay kiigu horeeyay jacayl ku bartay way waa kiigu horeeyay jacayl ku baray jacayl ku xiyay ما شاء الله waxaan ku leeyahay guuleysta waxaad baa idrejinina kadama shahadna insha Allah maalmaha kamid ah idinkoo qoysa yaa hagan idinku casumi doonaa oo waqtigu noo saamaxo insha Allah okay muu jira dad asalaam ilaahid dad badan okay kaga baxo kusoo dhawo wala dad badan ka salaamaya si malaal siclaha horeeyo ما شاء الله انت magacayga muuqayga taqaanana salaamaya dhamaantiin sharaf noolaada ma inta noo jirto wax wala rabtiin insha Allah hormar ku gaadha team kan magamaad aragto walaalis jacayl rajeen waxaad ka damacsan tahay horta wallahi horta team walaalaha waan dadka maanta ay baray kaamirada inay soo fariisto marka aan reel kala hadlo wallahi waxay qof ugu horeysay su'aasha ay weydiisay dad badan jacayl in ay bartaan asxaabta qaar team walaalo wax mooda afkoon bay mooda feegina ka hadlayo laakiin team walaalo waa team jira waa team nolosha saameyn kula asxaab badan oo halkii laabi karin baa jira oo ugu horeyso walaashii Suhuur Cabdi Maxamuud oo hadda Marwe ah walaalka Marwe noqotay ma sha Allah Suhuur oo hadda Marwe ah Umar Maxamed oo isna Muqdisho jooga oo isdii karo waa shakhsiga ugu horeeyay aan isku barnay muuqaal uu sameeyo waana walaalkii kaliya maanta garabkayga ah isnaga kulli rabbi raala ka aado sidoo kale Cabdi Daakir adoo saxaab badan oo waqtiga iyo waayuhuna baray ayaa jira teetii walaalahana maka baahan tahay in maka tahay basta ki garabkaaga tagana bas walaalkaya waxaan dhigi karaa aniga duruf kasta way la soo mareen dhalinyartaasi waa kuwa aniga maanta ka mar inaan soo muuqdo ka dambeeyay ibaray iguri waad gaari kartaa guul kasta taagan tahay anigoon ka dambeena hortada eeg wixii gadaalkay madana naga joogna waa tiin markii aan ku tashado waxa leeyahay bar qof walba meesha joogo iyo maqaamka ku joogo yaan ku salaamaya waxaan ganay guntii gunaanita haddii aan ku raado jacaylkaaga amba qofkaaga hal heesa bartan ugu reeb amba sii qaad hees nuuciyo qaad lahayd walahi sana xoogu taageero Yurubkiga qaato inkastoo heesaas ku fiicneen Yurub Maxamed Yurubkiga qaato bal ani idinka la baxay heestaas markaad tahay ruux qodayda waxay qoonsataba ka dhowra waxaan ahay ruux qalooca qadiyada noloshaada diida markaad tahay ruux qadarin qareenu noqdo daaweya ruux qadarin فرمية كوكبة تحيي محلي حب معن جعلكنا هوارة إذن هاي سلوكنا صحابي وحادا عين مرنا ببقبدي هذا صحصو قبقبني سيدينا وحالينا يقوليسو مالا جبتان با kala soco sida heesaa barnaamijyada iyo wax walba cusub kala soco kuna xidhno